dadka aqliga badan ee maal gashan karaan. waa tahay dhegeystaha oo khadka telefoonka ayaan siin doonaa oo ku jira fikradoodii iyo su-aalaha ay ku weydiin doonaan. sheegin waxaan leeyahay waxaa booqan kartaa website-keena ah youthforsomalia.org halkaas waxaa ka heli kartaa contactskeena waana la soo xiriireysaa insha allah waana lagu soo dhaweynaa waana door ah ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed qayb qaadatid. dhegeystayaasha khadadka telefoonada soo galaya iyo su-aalaha ay ku weydiinayaan dhegeystayaal sida aad maqlayseen ba stuudiga koowaad ee Radio Mustaqbal waxaa nala jooga gudoomiyaha ururka Youth for Somalia Cabdullaahi Xasan Ashcari oo Youth for Somalia marka la micneeyana micnaheedu ay tahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay YFS na loo soo gaabiyo. dhegeystayaasha waan filayaa inay fahmeen dhegeystayaasha su-aalaha ay weydiinayaan Cabdullaahi Xasan Ashcari gudoomiyaha ururka. dhegeystahan hadda khadka soo khad ku jiraan fiinaya. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لالكي وانكم سلام عليكم في مكان كبراش كوفر سمينا أبواب برنامج كمرتدو كوه كبيانتين ندينكو هرمسان مجيعي يقولوا قديجة علم عبد الله قديجة قلن جد المدن حافظ البركة. واتاي قديجة كورن هالكا جوجتو قاب كل ورقة سنة يوعي بربارت. ما شاء الله هذا وين برنامج كان قروح بدن أنو دادين سألكتا يا الله ذا ولالكي. هيه gudoomiyaha ururka Youth for Somalia Cabdullaahi Xasan Ashcari YFS ayaana la joogaaye. ما شاء الله ku faraxsanahay walaalkay waxyaalaha badan uu sheegay oo wax qabadka badan oo ku mahadsan yahay waxaan dhihi lahay walaalkay dhalinyaro qaar oo dalka ku kala daadsan ayaa jiraan oo haween iyo rag iskugu jiraan dhalinyaradaas oo kala ururka ma soo gali karaan dhalinyaradaas oo kala daadsan oo daafaha ku kala kaamamka kamid yihiin al-shacab oo kala wax ma u qabatiin dadkaas oo kala ururka masane ma ku soo biiri karaan. ashcari aan u gudbinaa ashcari walaashay Khadija aad aga mahad celinayna su'aasheeda YFS member registration ay qabataa sanadkiiba mar insha Allah qofkii noo imaado anaga shuruudihii buuxiya ama asaga on galaado oo foomamka buuxiya oo aan wadanka dib ku ahayn rabana inuu ka qayb qaato arrimaha dhalinyarada waa soo dhaweynayna anaga. waa tahay aad ay u maasantahay Khadija dhegeystaha xiga ee qadka ku jiraan siinaya ee barnaamijka doonaya inuu ka qayb qaato. Hello assalamu alaykum. dhegeystahaasi qadka ayaa ka go'ay markana waxaan seenayaa dhegeystaha xiga ee qadka soo buux dhaafinaya ee doonaya inuu barnaamij ka qayb galo. idaacadu waa Mustaqbal 97 Idris halka aad joogto wacyiga barbaarta galabta qaabka loola socdo barnaamijkan xasaasiyada mudan ee wacyiga barbaarta soo soo jeedinaya ayaa dhigtay ku lahayn xamar jab dhammaan dhegeystayaasha ay u saaran tahay 97.7 megahertz ayaa dhigtay waa saacad. dhegeystayaasha beledweyne 89.5 ayaa naga dhegeysan karaan Mustaqbal Radio codka bartamaha haye su-aasha weydiin lahayd gudoomiyaha ururka. ururkan waxaa weydiinaa aad iyo aad bay wanaagsan yihiin ururkani oo hadda ururo badan magaalada Muqdisho way ka jiraan oo haddana sheegta kaliya wax qabad aan lahayn marka ururkani aad aad buu wanaagsan yahay dhalinyaro oo saruusatay marka waxa ka soo baxayo waa wax wanaagsan marka hadda nin walbana wuxuu jecel yahay inuu wax qabto wax oo masaakiinta wax siiyo marka ururkani hadda waxaa su'aal weydiin lahaa waxaa jira dhalinyaro asaageen oo kala ama dhalinyaro aad iyo aad hadda Muqdisho waxaa ku badan barakacyaal ay ku badan oo waxbaan haysanin sida masaakiinta ilmo daayar oo iska dhiibi jirin fiiska lacagta bish iskuulaadka oo kale iyo waxyaabo aan wax baranin marka arday sida casayaasha oo kale kuwa danta yar oo iskuul stage meelaha joogo oo marka wax siin ay haysanin oo mararka qaarkood baawar wado oo ku jiro marka idinka misku hoosheen saa wax uu qaban lahayn dhalinyarada si waxba haysanin iyo ilmaha sida yar oo hadda fiis sida hadda kaamanka oo kale ilmaha daayar oo waxba baranaa jiro marka ilmahaasna iska ururteen ma geyseen wax ma barteen marka ma ku leedihiin inaa wax bartaan deeq siisaan sida agab wax ku bartaan iyo agab ay wax ku shaqaystaan si casay oo kale marka ay maalmoodkooda ku raasaan halaas ma ku tala jirtiin ma qabatiin su-aasha ay weydiin lahaa aniga. waa tahay waa mahadsantahay Cabdullaahi. maasha Allah aad u mahadsantahay walaalkii waxaan umaleynaa inuu awoodda saarayo dhinaca educationka educationka YFS sanadkan waxay ka qayb qaadatay education campaign oo adduunyada dhan ay ka qayb qaadanayeen alxamdulillah waxaan noqonay ururka kaliya ee dhalinyaro ee ka qayb qaatay caalami ahaan barnaamijkaas waxaa waday UNESCO wuxuuna ahaa put education to work waxa la yiraahdo waxbarashada waa in aqoonta la geliyo reportkiisa wuxuu soo baxay April oo soo baxay ururka kaliya ku soo baxay ahaan education for all global monitoring report April ayuu soo baxay reportkaas ayaan ku jirnay wuxuu xooga saarayay in loo abuuro waxbarasho loo abuuro dadka faqriga ah ama dadka tabarta yar caruurta in loo saaro dhinaca kale oo ah wax ma u qabatiin caruurta iyo dadka barakacyaasha ah YFS waxay qabataa waxay iitiisa agoon badan sanadkii hore waxay iitiisay ugu yaraan
konton agoon Caruur ka tiro badan badan, caruurta ay siisay haddana insha allah waxaan rajeynaynaa inaan dib laabno marka ciidihii waa ka qayb qaadataan waa ka qayb qaadanaa midda kale oo aan rabo inaan xoogga saaro YFS sanadka soo socda insha allah waxaan rajeynaynaa inaan awoodda saarno in aan helno free education badan in la helo oo weli ay ku jirto supportive wax la dhahayo ama pocket money ay ku jirto insha allah waxaan isku dayaynaa inaan u raadino partners ama global partners oo naga caawiyo in caruurta Soomaaliyeed ama dhalinyarada ay helaan waxbarasho bilaash ah waa gartay dhageysta hadda qad ku jira intaanan siinin xafiisyo wacyigelin ma sameyseen anaa raacsanahay ahaa YFS waxay sameysay mashruuc lagu magac daray mashruuca project free service for youth waxaa weeye tala bixin bilaash ah waxaan ku aadinay xilligii sanadkan hadda la soo